toddobaadyadii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya waxay qabqabatay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeynayo hanti lunsasho iyo musuqmaasuq. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii Juulaay isagoo lagu eedeynayo inuu lunsaday lacag deeq ah. Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Waxa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha dekedda Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne. Waxaa isna shaqadii laga joojiyay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daa'uud oo lagu eedeeyay isagana inuu lunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000. hase yeeshee kiiska ugu culus ee musuqmaasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruucu maalgelinaya bankiga islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxaa laga hirgelinayay 3 tuulo ee kala ah Faafaxdhuun oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Mudug iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki. mashruuca waxaa maalgelinaya bankiga islaamka waxaana loo qoondeeyay dhaqaale dhan $5 milyan. waxaana mashruucu isugu jira 3 waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyo waxbarasho, adeegyo caafimaad iyo weliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah. haddaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamul xumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan. Cabdulxakiim Alwaacir waa la taliyaha madaxweynaha bankiga islaamka ee maalgelinaya mashruucan. sidoo kale waxa uu yahay afhayeenka bankigaas. waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika, gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Uganda iyo Djibouti. waxa uu iga warramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulay mashruucan. Now, in the case of the Drylands Development Project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has, of course, raised some concerns from our financial control. arrinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya, baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyay wejiga saddexaad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha. walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga. marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada, ma ahayn wax uu bankigu ogolaanayay inuu sii wado mashruuca. halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la saxo ka hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca. haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda, waxaa dhab ahaan yidi diilo leh in markii bankiga horumarinta islaamku uu wargeliyey dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah, loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo. waxaan kuu sheegi karaa inaannu wada shaqayn buuxda ka helnay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin degdega oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee bankiga islaamku filanayo. dabcan taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo. waa arrin laga wada dheregsan yahay, waana sida ku cad heshiiska lala saxiixday dowladda. mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxeexay 1 bishii Juun 2014, waxaana wada saxeexday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane iyo ku-xigeenka madaxweynaha bankiga islaamka Biraam Abuubakar. waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay Oktoobar 2016, xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti. haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan, waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah. bankiga horumarinta islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada Jiddo oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18 bishii Febraayo 2017, taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uun kadib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. lacagta lagu soo shubana waxay ahayd $5 milyan. qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga Soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22 Oktoobar 2017, waxayna dhammayd $474,000. taariikh kale oo ka dambaysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii saddexaad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000. warqaduu bankiga horumarinta islaamka 5 bishii Juulaay ee sanadkan uu qoray isku duwihii mashruucaasi Cabdishakuur Aadan Maxamuud iyo xogayihii joogtada ee wasaaradda maaliyadda Axmed Dayib Nuur ayaa bankigu uu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah. waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaabo ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray isku duwaha mashruuca
oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyey mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay iyo inaanay wax caddaymo ah wehelinin gaar ahaan wixii la geliyey mishiinada dhismayaasha iyo weliba tashiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca waxa kaloo bankiga horumarinta islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan caddaymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey tusaale ahaan waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn risiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacago ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday iyo inaan loo samaynin hannaan diiwaangelin ama warbixineed waxaa kaloo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday koontada mashruuca lagala baxay lacago caddaan ah iyo mid jeeg ahba sidaasna uu sameeyey iskuduwaha mashruuca cabdishakuur aadan maxamuud taasi oo ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed dowladda soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay iskuduwihii mashruucan oo haatan ku xidhan xabsi ku yaalla magaalada muqdisho loona diiday in damiin lagu sii daayo xeer ilaalinta dowladda soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo oogaan cabdishakuur aadan maxamuud jamaal maxamed axmed waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya kiis ballaaran oo musuq maasuq u badan buu ahaa iyo wax isdabamarin iyo ku-takrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa markii lanoo soo gudbeen annaga dee baaris dheer baan ku samaynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamadda inaan ku horgeyno hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka caddaymaha aad kiiskan u haysaani ma xoog badan yihiin mise waxba idinka kala dhiman wallahi xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama isaga laftiisba si madax bannaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama caddeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaan weydiiyey siday u arkaan xiritaanka iskuduwaha mashruuca cabdishakuur maxamuud aadan iyo inay taasi bogsiinayso walaacii ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan Well, let me be clear. From the IDB side, we will not ask for an official to be detained, nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries. aan kala caddeeyo dhinacayaga bankiga horumarinta islaamka ma aynaan codsan in sarkaal la xidho sidoo kale sarkaal la xidhaa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay waxaan ku tiirsannahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka waxaan doonaynaa in ay dowladdu qaaddo mas-uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca waxaan ka doonaynaa dowladda in ay tallaabada saxda ah qaadaan si ay uga jawaabaan maamul xumada dhacday ayna bixiyaan dukumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu soconno wixii intaas ka soo hara ee ay samayso dowladda soomaaliya iyagaa sharciyadda iyo mas-uuliyadda leh dabcan sumcaddooda ayay saamaynaysaa ay la leeyihiin hay-adaha kale ay iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah sidaasi daraaddeed dowladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelaadda isuduwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda taas ayaa qancin u ah mid ka mida su'aalaha ku saabsan maamulka waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca waana mid ka mida shuruudaha bankiga horumarinta islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin si horey loogu socdo waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyey ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo annaga oo haddaba og taas ayaannu ugu yabohnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dowladda gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca in tababar laga siiyo maamulka mashruuca taasi waa qodobka labaad waxa weeye magacaabista isuduwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaara oo weliba loo tartamaa taasi ayaa ah shuruud kale si isuduwo loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti bankiga horumarinta islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda soomaaliya inay xidhayaan koontada si ku meel gaar ah waxayna ugu baaqeen dowladda soomaaliya in baadhitaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo caddaymaha lacag bixin dhan $543,874 afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale
The account has to be frozen according to the procedures until all the issues raised through the auditors are accounted for. mashruuca iyo akownka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo kadibna loo ogolaado sii daynta wejiyada kale ee maalgelinta. xiritaanka akownka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la samaynaa mas-uuliyiinta, waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dowladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aanu codsannay. mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn. waxaa kaloo barnaamijka galka baadhista uu baadhitaan ku ogaaday in iskuduwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka galka baadhista uu arkay baadhitaanno lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca, halkii ay ahayd inay shirkadaha adeegga bixinaya ay kala baxaan. wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti waxa uu xaqiijiyey in Cabdishakuur Aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo. mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xoghayaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa waana sharci, ama contract ayaa qofka lala saxeexan karaa hadduu yahay consultancy. marka labada dhinac bay furan tahay. marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis. marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe? may waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee wadanka u dhisan yahay waxay tahay cid keligeed accounti oo ama mashruuc ahaado ama hay-ad dawladeed kale ha ahaadaane accounti oo maaragtay bankiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani ogaalkay ma aha. marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan laba saxiix, counter balance waa inuu jiraa. inta badanna waxaa ah xisaabiyaha guud ee dawladda. marka wasaaradda maaliyadda aqoonteed ma jiro wax mashruucan aan ogahay oo hal qof saxiix keligiis ku leh ma jiro intaan waqtiga ogaa. waxaa kaloo barnaamijka galka baadhista uu ogaaday in lacag ka badan $500,000 oo ka mid ah ku dhowaad $1 milyan ee ugu horreeyey ee lasoo diray ay ku baxeen waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, halka lacag dhan 99,000 oo kalena lagu bixiyey iibka qalab xafiiseed, inkastoo aan wax caddaymo ah loo haynin in qalabkaasi la iibiyey. taasi waxay ka dhigan tahay in $400,000 oo keliya ay gaadhay dadkii reer guuraaga ahaa ee dhaqaalaha loo soo dhiibay, taasoo laftigeed aan wax caddayna loo haynin in dhaqaalahaasi la gaarsiiyey dadkii u baahnaa. shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. haddaba qareenka difaacaya Cabdishakuur Aadan Maxamuud ayaa beeniyey dhammaan eedaha loo soo jeedinayo. waraysi gaar ah ayaan la yeeshay abukaate Cali Xalane. eedaha waxaanu ku difaacaynaa waxa waaye marka hore qodobadu waa qodobo ma garanaysaa iska hor imaanaya oo iska soo horjeedo. sababtu waxay tahay markii qofi la yiraahdo qofkan ayuu riixay, candhuufuu ku tufay, sarabaaxdinuu ku dhuftay, qalabuu u qaatay, dhaawacuu u geystay, qaanuunku wuxuu fiirinaa waxaa laga soo qaadaa in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo ciqaabta ugu culus oo ugu weyn. qodobka ugu weyn oo ugu culusaana loo soo qaadanaa 480, laakiin lama soo qaadanayo kuwa yaryar, waxba ka bedeli maayaan. markaad fiirisid Cabdishakuur 4 qodob ee ugu soo eedeeyey, 4tooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in eediisa ay ku qotonto. number 1 qodobada iska soo horjeeda. midda labaad ee aanu ku difaacayno waxay tahay Cabdishakuur 5 qofood ayaa kiiskiisa markhaati laga dhigay,
eed ahaanna ayaga ayay u eg tahay inay eedii soo jeediyeen. waa gartay waa gartay inaan xuso macruuf, waxaan rabaa inaan xuso cabdishakuur wuxuu ka tirsanaa uu hoos tegayay wasaaradda maaliyadda. wasaaradda maaliyadda wax eed ah oo ay ka keentay ma jirin, mas-uuliyaddana ayagaa iska laheyd, laakiin waxaa naloo sheegay eediisa inay soo farageliyeen xafiiska hantidhoorka. waaye wax yar aan kaa dhex gala marka adoo sii wata wax yar aan kaa dhex gala. dhowr su-aalood baan ku weydiina, waxaan jeclaan lahaa jawaabo kooban inaad siiso. waxaa la sheegay bankiga islaamkuna uu sheegay warqado uu qoro, waan arkay in iyadoo audit baaritaankii xisaabeed lagu wado mashruuca in cabdishakuur uu lacago kala baxay caddaan iyo jaagba isugu jira bankiga. ma jirta arrintaasi? arrintaasi arrin jirta ma aha. waay arrinta kale lagu eedeeyey waxa weeyaan inuusan asal ahaanba haysanin qandaraas contract uu kula shaqeeyo wasaaradda maaliyadda, oo uu haystay keliya warqad lagu magacaabay oo uu booskan ku qabtay hab aan loo tartamin. jawaabtaada? waxa waaye cabdishakuur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray positionka hadda uu joogay, wakti badan geeyo mucaawin ahaan ugu shaqaynayay dalka iyo dadka si volunteer ah oo aan waxba ka qaadanin. markii mashruucii uu hagaagay la abruuf gareeyay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka ee isla jaan qaadeen, cabdishakuur muwaadin waayo xaq uu u yeeshay inuu codsi u qorto. codsigaas uu qortay darteedaana lagu siiyey. siismadaasna waxay keentay in maanta lagu eedeeyo asaga. marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan asagu ka tirsaneen ama contract uu ku haysanin, waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa, maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan. laakiin cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyay. marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn karo eedda haddii ayan jirin mas-uuliyad. waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxaa ka mid a in isaga keliya uu lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca 3 meelood ka socday uu keligii ka saarayay oo cid kale aysan la saxeexayn, iyadoo sharci ahaan ay ahayd inay cid kale la saxeexdo. jawaabta? qaabka xeer maamulaa lagu dabaqayaa. haddii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacaga la rabay in lala saxiixa ayaanan lala saxiixinay asaga bixiyay, cabdishakuur qasmaji ma ah. marka cilada jirta waxaa waaye cabdishakuur hadduu u fasaxan yahay jeeg keligii inuu saxiixane waxa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka. haddii kale waaba kusoo noqonaa jeegga asaga ah. laakiin waxaan ognahay annaga clientgeena uu noo sheegay cabdishakuur in asaga markuu saxiixa kabacdi haddana abruuf kale lagu sameynayo jeegga wasaaradda maaliyaddana ay mas-uuliyadda dhinaca ku leedahay. bankiga islaamku waxa uu haatan shuruuda duldhigay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, kuwaasoo ay ka mid yihiin in xilka iskuduwaha mashruuca la xayeysiiyo si furanna loogu tartamo, iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruucan maamulaya, gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda, habka loo sameeyo diiwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya. afhayeenka bankiga islaamka Cabdulxakiim Alwaacir ayaa iiga warramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu ku sii socon karo. As soon as the conditions are met and cleared by our audit and risk management department, immediately it will resume. So there is no purpose. marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ayna fasaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maareynta khataraha, degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu. ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado. waxaanan si dhow ugala shaqaynaynaa saraakiisha dawladda in ay taasi ka dhabeeyaan dhowaan, annaga oo tixgelinaynaa sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrintan. waxaan filaynaa in 2 bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan. khubaro xogogaal u ah jaangoynta mashaariicda iyo qaabka fulintooda waxay ii sheegeen in mashaariicda ay fulinayaan wasaaradaha dawladda looga baahan yahay in lagu caddeeyo miisaaniyadda dawladda si ay baarlamaanku uga doodaan dadweynuhuna u ogaadaan. cali ciise cabdi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, horeyna ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF. waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay marka la leeyahay mashruuca waa in lagu daraa miisaaniyadda waddanka.
waxay ka dhigan tahay mashruuc hal mashruuc iyo laba toonna wax ku shaqaysan maahayn dawladiba haddii dal si toosa u maamulayso dhaqaalihiisa waa inay og tahay waxa soo gelaya waxa iyadu jeebkeeda ay ka maamulayso oo cashuuraha dalka ka qaadayso iyo waxa mucaawan ahaan usoo gelayaba soomaaliyana 25-30 sano haddayna dhaafay wax allaaliyo wax dawladdu ay ka og tahay aan odhan karaa kharashka ay dawladahaasu maaha bankiga islaamka uqudha xataa dawladaha xataa European Union xataa kuwan dawladahan kale mucaawinka balaarsiya waxay sameeyeen way barbar maraan miisaaniyadda Soomaaliya waxa la yidhaahdo off budget maamulkii mashaariicdooda waxay mariyeen hay-adahan NGOs-ka la yidhaahdo inta u badan Soomaaliya waxay halka ugu sarreysa kaga jirtaa wadamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan sida ay qortay hay'adda Transparency International waxa haddaba isweydiintu tahay hawsha u taala dawladda iyo hay'adaha sharci dejinta intee ayay leegtahay su'aashaasi waxaan weydiiyey Cali Ciise Cabdi oo madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada Geeska Afrika dhawaadna ka mid noqday xubnaha guddiga dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya musuqmaasuqu ma aha wax ku saabsan lacagta jeebka la gashanayo wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaantii hufnaantiisa iyo maxaan ku idhaahdaa sida loo qiimeynayo hal example haddaan ka bixiyo waxaan Soomaalidu fahamsanayn waxa weeye haddii qof la siinayo masab aan ugu qalmin tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dad dhalinyaro ah oo aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fadhiisan lahaayeen hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaan ku idhahdaa xisaabtiisa ku sameeyay evaluationka iyo assessmentku waxyaabaha ay eegaan kuwaasaa ka mid a mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameedsaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dawlad ay la dagaalamayso musuqmaasuq waa kan Cali Ciise Cabdi oo sharaxaya case hadda specific oo maxkamadna aan gaadhin ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan la ogeyn wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaadna aan doonayaa inaan ummadda Soomaaliyeed ka fahamto qofku masabka uu hayo midba midku ka weyn yahay haddii cadaalad iyo sinaansho dadka lagu dhaqayo isaga laga dhigayo example inta aadiyatooniga maxaan ku leeyahay shaaha u keenaya shaqaalaha odhanaya musuqmaasuq ku kacay haddii wasiirkii tilmaan laga dhigto haddii laga dhigto agaasimihii guud ama agaasimihii lagu soo xaqiijiyo inuu waxaan sabab u ahaa ciqaabta uu mudan yahayna uu muto ama masra ku waayo ama si kaleba ha loola xisaabtamo waxaan ku rajo weynahay inuu dadka inta kalena odhanayso asaagii loo xiro ama kii ka sarreeyeyba loo soo qoyso marka example haddii dawladdu ay doonayso inay ka dhigto maaha inay ka ugu liita ka soo qabato waa inay ka ugu tunroon musuqmaasuqa laga joojiyaa lana tilmaansadaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka Jamaal Maxamed Axmed ayaan weydiiyey tallaabooyinka xiga ee dawladdu qaadi karto iyo in baaritaanka musuqmaasuqa lagu fidin karo xafiisyo waaweyn oo aan ku koobnayn saraakiisha hoose wallahi hawshan waxaan rabnaa natiijadeeda inay noqoto tilmaantaas la bixiyey inaan bedelno oo aan wax ka bedelno siday hadda ay u bilaabatayna aan wadno ilaa meesha ugu habboon aan ka gaarsiinayno hadduu ilaahay raalli ka noqdo si guud haddaan ku weydiiyo hadda dadka aad xidheen waa dad hoose waa maamulayaal deked waa agaasime wasaaradeed waa dad hoose laakiin dadka qaar baa laga yaabaa markay maqlaan inay dhahaan arrintan intan way ka ballaaran tahay heer ka sarreeyay gaadhsiisan tahay xafiisyo waaweyn bay gaadhsiisan tahay intee buu gaadhsiisan yahay sideedaba marka arrinta sidaas loo dhigo dee dadka waxay sheegaan haddii la qaato dee layskama qaadan karo adi laftaada waxaa la raba aad joogtid xafiis ama aad sharciba aad dul joogtid waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcigan xadguduba laakiinse haddii la yidhaahdo wax ka sarreeyaa jira meelo kale wax ka jiraan taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo annaga waxaan dacwad ku dhaqaajina ama gal aan ku furnaa dhacday oo la hubo beri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo cadeymaheedii oo waafi ah lagu horgeeyo dacwaddana lagu heli dhegaystayaal waxaa iga xusuusinah in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirkeedaba Cabdiraxmaan Ducaale Bayle anigoo kula xiriiray telefoon email iyo weliba baraha bulshada
hase yeeshee ilaa haatan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu kama soo jawaabin codsiyadii aan u gudbiyey.